waxa uu ahaa halyey islaamka garab istaagay kuna suntanaa geesinimo karti iyo dhiiranaan har iyo habeenna u taagnaa inuu islaamku kor u ahaado. haddaba waa iyo shakhsiga intaa oo sifo isku darsaday waa amiirkii badaha ee Khayrudiin Barbarossa. assalaamu calaykum, magacaygu waa Cabdiraxmaan Jaarig. inteenan muuqaalka in u gelin noo dhaha like iyo subscribe saan u ogaana intan muuqaalada noocan oo kale ah xiisaynaysa. ha u galno muuqaalka oo faahfaahsan. Khayrudiin Barbarossa waxa uu dhashay sanadu markay ahayd 1476 magaalo la dhaho Midali, waxaana uu ku barbaaray magaaladaas. waxaana uu ka shaqayn jiray yaraantiisii ganacsiga. waxaana uu ugu yaraa 4 wiil oo la kala oran jiray Isxaaq, Curuuj iyo Ilyas iyo isaga. waxaana uu safxadaha taariikhda ku suntay magaciisa. haddaba haddii aynu weydiino qof aynu dhahno waa iyo Barbarossa, isla markaaba waxaa maskaxdiisa ku soo degdegaya inuu ahaa burcadbadeed. waasay sheegeen reer galbeedku, waxayna ka sameeyeen filimaan ay shakhsiyadiisa ay ku xumaynayaan, ayagoo ku tilmaamay inuu ahaa Khayrudiin nin khamriye caba, burcadbadeedna ah. laakiin haddaynu safxadaha taariikhda dib aynu u yara jaleecno, waxaynu ogaanaynaa inuu islaamka martabad weyn ugu jiray, uuna ahaa shakhsi aad iyo aad u wanaagsan. waxaana uu ahaa waa Khayrudiin Barbarossa taliyihii ugu weynaa ciidamadii dowladdii Cusmaaniyiinta ee waqtigaas adduunka ka talinaysay, ahaydna dowladda islaamka kaliya ugu weyn laguna soo hiran karin. waxaana uu xilka kala wareegay walaalkiis Curuuj oo isaguna shahiiday korna ugana weynaa. wuxuu u sabab ahaa waa Khayrudiin Barbarossa in uu badbaadiyo 71,000 muslimiintii ku xayirnaa dalka Andalus aynu u naqaano Isbaanishka. wuxuuna awooday Khayrudiin inuu iska caabiyo ciidamadii Isbaanishka ee qowlaysatada ahaa, iyagoo isku dayay inay marlabaad ku soo rogaal celiyaan dalka aynu hadda u naqaano Jazaa'ir. sanadu markay ahayd 1529 iyagoo rabay inay qabsadaan, waxaana uu u diiday inay soo galaan dalka Jazaa'ir, wuuna iska caabiyey. waxa uu ahaa waa Khayrudiin Barbarossa halyey ka baxay islaamka, waxaana loogu bixiyey Barbarossa. waxa uu lahaa gadh aad u weyn oo cas, waxaana uu dhintay sanadu markay ahayd 1546. waxaana uu hadda ku aasan yahay magaalada taariikhiga ah ee la dhaho Istanbul. waxaan filayaa inaad taariikhdiisa oo kooban aad wax ka baratay Khayrudiin Barbarossa. waad ku mahadsantihiin muuqaalkan daawashadiisa. fadlan haddaad wax ka korarsatay subscribe noo dheh, like iyo share waa noo muhiim. assalaamu calaykum.